magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ku soo dhaweeyay wafdigu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wafuud kala duwan ee maanta tagay magaalada Garowe iyo kuwa la filayo inay maalmaha soo socdo gaaraan ayaa dhamaantooda ka qayb gali doonta uu soo qaban qaabiyay manhajka caalamiga ah Heritage oo maalmihii ugu dambeeyay la qaban qaabinayay inuu ka furmo magaalada Garowe gudoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa ka sii horeeyay gudoomiyaha golaha shacabka iyo mas'uuliyiinta kale oo ka tirsan midowga musharaxiinta kuwaasi oo ka qayb gali doona shirka ka furmaya magaalada Garowe shirka oo la filayo 28 bishan inuu ka furmo magaalada Garowe ayaa waxa looga hadli doonaa xaaladda doorasho ee dalka kadib markii muddooyinkii ugu dambeeyay jahwareer xooggan uu ka taagnaa doorashada Soomaaliya midowga musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa gabi ahaanba ka soo horjeestay guddiga ay magacawday dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo ay sheegeen in laga soo xulay dhammaantoodba hay'adda nabad sugidda iyo shaqaalaha dowladda haddaba mas'uuliyiintan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa isku arki doona isla markaana waxay isdhaafsan doonaan ereyo kulkulul dadka qaarkood ayaana waxa ay sheegeen in shirkani uu noqon doono mid ay ku heshiiyaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo musharaxiinta oo u cuntamila go'aanka ay dowladda ay ku magacawday guddigaasi sidoo kale maanta ayaa waxa ay ku beegneed maalintii la soo xuli lahaa guddoonka aqalka sare mana muuqato ee fafaalo muujinaysa in doorashadaasi ay dhici doonto kadib markii dhawaan guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay ee jadwalka doorashada ay soo saareen dhinaca kale waxaan ku guda jirnaa xaaladda magaalada Garowe waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay magaaladaasi ka taagnaa sicir bararkii ugu xooganaa wararka saaka aan ka helnay halkaasina waxay sheegayaan in oday da' oo ku geeriyooday meel 10 kiiloomitir u jirta magaalada Garowe kaas oo la sheegay geeridiisu inay sabab u ahayd gaajo soo wajahday dibadbaxyo ayaa sidoo kale maanta waxay ka dhaceen bartamaha magaalada Garowe iyo xarunta baarlamaanka maamulkaasi ee magaaladaasi wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in kadib markii dowladda Puntland ee magaalada Garowe canshuurta ay diiday inay ku qaado lacagta shilin Soomaaliya halka ay ku daydeen ganacsatada ayaguna inay iska diidaan taasna dhibaato weyn ay ku noqotay bulshada ku nool magaalada Garowe ee gobolka Nugaal